بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دواada saafi channel oo aan kaga hadalno waxyaabo dan u ah bulshada. Maanta waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha guryaha lagu nadiifsado ama chemicalska guryaha lagu nadiifsado ama dharka lagu mayro ama korka lagu mayro dhibaatada ay u leeyihiin jirka bini'aadanka. Arintaas oo ah arin aad looga hadlo maalmahan. baaritaan ay samaysay jaamacad ku taala wadanka Norway waxaa la sheegay in alaabta guryaha lagu nadiifiyo haween badan inta laga qaaday la tasgareeyay haween badan oo isticmaalay alaabta guryaha lagu nadiifiyo laga arkay haweenkaas inay alaabtaas maxay to damage u geysatay sanbabadoodii damage-kaas oo waxa la yiri u dhigma markii ay guriga hal mar guriga haday suntaas isticmaalaan oo ku nadiifiyaan damage-kaas wuxuu u dhigmayaa la yiri qofkaas inuu 20 xabo sigaar cabay maalinta guriga nadiifisid oo sun ku nadiifisid waxay u dhigantaa 20 xabo sigaar adigoo cabay. waa baaritaan la sameeyay jaamacad ku taala Norway samaysay qofkii rabana wuu baari karaa wuu eegi karaa marka sumaha guryaha lagu nadiifiyo khatartooda ma sahlana hatta intaas waa inta la qirtay la sheegay laakiin khataro badan oo hooseeya ayaa jira. marka sumaha guryaha lagu isticmaalo saddex wax ayaa ku jira. waa wax carcinogenic ah oo ah waxyaabaha kansarka koos gareeyo. waxna waxa weeyaan waxa la yiraahdo endocrine disruptors ama endocrine hormone disruptors kuwaas oo ah kuwa hormoonka bini'aadanka carqaladeeya. hormoonka marka la carqaladeeyana dhibaatooyin badan ayaa dhaca caafimaad darro ayaa dhacda. caafimaad darradaas dhacda waxaa ka mid ah infertility oo ah madhalaysnimo, premature puberty oo ah in qofkii oon waqtigiisii gaarin uu baaluqo, miscarriage waxay keeni kartaa waxay keeni kartaa caadada oo kaajaha wareerta, waxay keeni kartaa ADHD attention deficit hyperactive disorder waxa ay yiraahdaan ee caruuraha ku dhaca. waxa kale ay keeni kartaa xitaa cancer. saddexaad ee ku jirta maxay tahay chemicals alaabta wax lagu nadiifiyo markii waxaan ku cancer carcinogenic wax ah endocrine disruptors waxa la yiraahdo ayaa ku jira. ka saddexaadna waxa waaye neurotoxinska oo u xun maskaxda, xasuus xumo keena iyo xanuunada maskaxda ku dhacana keena. saddexdaas wax ayaa horta ku xaadir ah waxyaabaha wax lagu nadiifiyo. marka waxaa jira 7 wax oo aan rabo inaad maxay ahayto 7 wax oo waxyaabaha aan guryaha ku nadiifsano ama jidhka ku nadiifsano ama dharka ku nadiifsano kamid ah oo aan rabo inaad maxay ahayto ka feejignaataan oo aad joojisaan ama bedeshaan. number 1 waa waxa la yiraahdo air freshener-ka ee guryaha lagu buufiyo. air freshener-kaas waxa ku jiro carfisa ku jirto ama waxaan ay fragrance ka yiraahdaan. fragrance-kaas oo kiimika ka samaysan, kiimikooyin badan ay ku jiraan oo aan xad lahayn. air freshener-ka marka guryaha in lagu buufiyo uma fiicno oo aad neefsataan maxaa yeelay caafimaad darro ku jirta. qodobka labaad waxyaabahan dharka marka la mayrayo aan mashiinka ku shubno oo lagu carfiyo. kan saddexaad waxay tahay waxay yiraahdaan antibacterialka faraha lagu shubto oo lagu nadiifsado oo like hospitaalada iyo marka tagtid oo kale aad faraha ku shubatid oo aad ku farxalatid iyadoo laga dhaadhiciyay inay bakteeriyada faraha ay ka dilayso laakiin damage ayay u leedahay faraha. qodobka afaraad waa waxyaabahan aan wax ku clean garaysano oo masqulaha iyo guryaha lagu nadiifiyo oo iyagana ay sumo badan ku jiraan. sumahaas oo waliba qaarkood aynaan maxay hayto lagu cadeynaynin dhalada korkeeda maxaa yeelay kambaniyada waxay isticmaalaan wax la yiraahdo trade secret oo ah inaanay wada sheegin ingredient-ka alaabta ka sameynayaan. marka waxyaabahaas wax lagu nadiifiyana waxyaabaha laga qayliyay oo hadda la sheegayo dadkii isticmaalayay in xanuuno laga helay. qodobka shanaad wuxuu yahay waxyaabahan drainka lagu nadiifiyo markuu ka balogrubo lagu shubo ama ovenka lagu nadiifiyo ama lagu nadiifiyo maxay ahayto musqulaha godka musqusha lagu shubo iyadana waa waxyaabaha wax lagu nadiifiyo. sumahaas waa sumo powerful ah ka taxadira
qodobkeena lixaad waa biliijka oo Soomaalida ayba u haysato wax aad u fiican oo dadka qaar xitaa aan maqlay inay ku dhahayaan bakeeriyadan ku nadiifsanaa iyo weelka lagu nadiifinaa biliij in weel iyo bakeeri iyo agtaada soo mara ma aha in gurigaaga xitaa biliij soo gala ma aha biliijka dadka qaarna waxay u yaqaanaan Soomaalideena warankiile u yaqaanaan warankiilada waa sun khatar sumaha aan soo sheego dhan waa ta ugu khatarsan maxay xitaa guriga marka lagu tirtir waxa la sheegay uu qalalo inay bus uu kaga tago bustaas markaad neefsataan oo aad jiidaan asma laga qaado marka biliijka waa ka ugu khatarsan inaad weel u dhaweysaan warkeeda badaa biliij inaad weelkaaga ku shubtid iska daayay musqushaada xitaa ha ku shubin ka fogow gurigaaga xitaa ayaanu soo gelin biliij waa very dangerous biliijka waa inaad ka digtoonaataan ama warankiilada ama dadka qaarna chief ay dhahaan chief waa brand name waaye bahashan warankiila la yiraahdaa Soomaaliya warankiilo yani gurigaaga soo gelin qodobka u dambeeyay toddobaad waa alaabta xumbaysa sida saabuunta adag ee jidhka lagu maylo saabuunta biyaha ee shower gelka ah oomada aan dharka ku dhaqano alaabtaas xumbaysa oo dhan naftirkeeda khatara lagu sheegay waxyaabaha ay idin sheegay oo dhan waa fahmaya waa waxyaabaha caadada ah markay guriga ka go'aan supermarket inta u cararna soo qaadano ama aan isku nadiifin ama aan guriyaha ku nadiifsanna laakiin waxyaabahaas oo dhan suna ku jirta marka isku day ina waxyaabo natural guriyaha ku nadiifsataan waxyaabo badan oo natural jira oo aad samaysan kartaan oo wax lagu nadiifiyo sida maxay baking soda apple cider vinegar ama vinegarka white vinegarka wax lagu nadiifin karaa waxaa jira mariyo microfiber clothes la yiraahdo shukumaano yar oo iyagana just shukumaankaas yar iyo biyo xitaa ay wax badan qabanayso ay wax badan ku nadiifinayso adoon bakiimika u baahnayn haddaad microfiber cloth aad isticmaashid shaqo badan ay ku qaban kartaa haddii kale vinegarkaas iyo maxay too baking sodahaas ama baking bicarbonate of soda ingiriiska laga yiraahdo Mareykankana baking soda in la yiraahdo umaleynaa waxyaabahaas wax lagu nadiifsadaa natural guriga waxyaabaha guriga lagu buufiyo adiga Soomaaliya tahay annaga caado uma lihiin sumahan guriyaha lagu buufina annaga gurigeena uunsi iyo waxa lagu shidi jiray foox uunsiga idin kulama talinayo maxaa yeelay kiimikooyin iyo barfuunaad iyo catarro iyo balaaya ku jirta laakiin wax natural ah oo guriga nadiifinayo oo bakteeriyada ka dilaya ayaa ilaahayna siiyay aan cidna haysanin waa fooxa guriga ku shita foox hadaa gurigiina ku shidataan guriga dhan caraftiisa macnaheedu guriga dhan smell ma yeelanayo neutral uu noqonaya gurigaaga wax xawaasha iyo wax cunto ah iyo wax ka soo uraya toona ma jiraan ku dadaala inaad foox isticmaashaan waa wax natural ah benefitna kuula waliba baquurkiisaas fooxa markuu kugu baxo muurkaagu anfacaya hurdo macaan ku siinaya immuunkaagu boost garaynaya guriga bakteeriyadu ka dilaya faa'iidooyin badan oo aan halkan ku sheegi karin this video ayuu leeyahay fooxa marka wax marka guriga aad ku buufisid aad asma ka qaadaysid ama maxay to hormoneskaaga maxay isku dhexyaacinaya ama dhibaato ku geysanaya intaad isticmaali lahayd isticmaal wax natural ah oo aan waxba ku geysanayn inuu wax faa'iido ku siiyo mooyaane marka arrimahaas waxyaabaha naturalka adib aan uga hadli doonaa insha Allah videogan waxaan jeclaan lahaa hadaad jeclaysateen inaad la share garaysaan inta aad jeceshihiin haddii aad ka faa'iidaysateen ama aad ka hesheen thumbs up and subscription haddii aad maxay ahayd wax su'aal qabtaan ama comment ana xagga hoose igu soo qora anoo isku dayi doono inaan idinka jawaabo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.